kusoo dhowow xalqadii ugu dambaysay ee qaybtii labaad waxaa loogu talagalay inaad qalbiga kala socotid marka la soco intaynan u gudagelin xalqadan aadka u xiisaa badan aan soo koobna wixii dhacay inta lagu guda jiray xalqadii la soo dhaafay ee sahanka nolosha mooge wuxuu xaawakiin u sheegay in ay kala doorato ganacsiga iyo guurka waxay xaawakiin dooran doontaa maanta ayaynu middaasi ogaan doonnaa weli waa la la'yahay meesha daahir jaan iyo cirib dhigay talow ma la ogaan doonaa meesha uu jaanta dhigay inta lagu jiro xalqadan runtii ha ka qadin xalqadan sahanka nolosha halkan kala soco oo dhegayso daaqsan hood yaa jooga halkan waan ka xumaha inaad jawiga deggan kaa qaso waxaannu nahay suxufiyiin oo waxaannu maqalnay in xiddiggii yuutubka ee reer daaqsan daahir shiikh rooble uu tahriibay maxaad ka leedahay arrintaa war yaa sawirrada aad naga qaadaysaa jooji baan ku idhi sawirrada aad naga qaadayso fadlan su'aasha ka jawaaba wiilow dhegayso haddii aad kaamiradan sii wadid wax su'aal oo ka jawaabaya ma jirto marka shiikh rooble adiga ma ka jawaabaysaa su'aasha anigu ma aqaan waxa idiin sheego waa yahay noo sheeg waxa aad og tahay warar badana anigu waxaan ogahay in wiilkayga 4 beri maqan yahay waxaanan ogayna inuu tahriibay iyo in kale wax aan ka sheegi karo ma jiraan waxaa laysla dhex marayaa inuu tahriibay ma noo xaqiijin kartaa kolley waxaa jira caddaymo la hayo waxaa laysla dhex marayaa iyo waxaasaa la yeelayaa wax qof suxufiya oo ku hadla maaha waxaa lagaa doonaya mar haddaad suxufi tahay inaad xaqiiqda u dabagashid oo aad raadisid ood runta ummadda u soo bandhigto marka maxaad nooga sheegi kartaa xaqiiqda ah in uu la maqan yahay lacagtii loogu talagalay in geel loogu iibiyo sawlayaab kula maahan mudane waa sidii adiga kula taadeer baaritaanada aan samaynay waxaan ka ogaanay in lacagta lagu tahriibo ay tahay 4 geela lacagtooda taasi oo lagu tahriibinayo ilaa Yurub ma u malaynaysaa in ay isku tastay in daahir la maqan yahay lacagta 4 geela ah fadlan anigu jawaabaha su'aalihiinu waan ku daalay qaati baan taaganahay hooyo ceebla maxaad ka leedahay in la arkay wiilkaagii oo dhowr jeer mukhallas la taagan maxay ma runtaaba yaa kuu sheegay adiga ceebla way iska qiyaasayaan waxay doonayaan in adiga wax ka xaqiijiyaan ana ku aqaan suxufiyiinta mukhallaskaas meesha aan ka heli karo ma taqaanaa sababtoo ah wuxuu iga caawini karaa daahir helitaankiisa hagaag marka ma waxaad xaqiijinaysaa in daahir mukhallaskaasi la hadlay sideen u xaqiijiyaa idinkaaba ii sheegay yaa yaqaana mukhallaskaas sideen ugu tegi karaa ma u malaynaysaa in saaxiibadii hibo qorshaha wax ka ogeyd waan isku daynay inaan la xiriirno laakiin hadal waan ka weynay marka hibo ayaa qorshaha degtay miya ceebla iska dhagatay suxufiyiintan oo warkooda ha maqlin ma waxaad oggolaanaysaa inay maskaxdaada beddelaan oo maskaxda ay kaaga ciyaaraan mandhooyinoo wixii aan ogayn waannu idiin sheegnay wax kale oo aan ognahayna ma jirto marka fadlan iska daaya waxaad iska qiyaasaysaan iyo waxa mala awaalka iyo waa la yidhi iyo waan maqalnay iyo waa la sheegay waxa xaqiiqda ayaa dadka loo bandhigaa waana la hubsadaa waxaad iska sheegmaa haddana iska baxa waa hagaag hal su'aal oo kale halkan su'aal u nooga jawaaba na xushmeeya fadlan iska baxa tanoo kale waa waali ka warran haddii ay hiba ka dambaysay arrintan yaa ceebla dadkaan ayay maskaxda kaa wareerin riwaayadaha ayay wararka ka sameeyaan maanta waxay uga dhegantao miiska u saaran DSR waa daahir waxaa laga yaabaa in warkan qaar run yahay xaggee u socotaa ceebla hiba ayaa la soo hadlayaa haddii daahir uu tahriibay sida ay sheegayaan iyaduna wax ayay ka og tahay arrinkaasi ma dhab buu kaa yahay oo dadkaas waxay sheegeen ayaad rumaysanaysaa keliya waxaan rabaa inaan hiba indhaha saaro oo ay ii xaqiijiso inaanay shaqo ku lahayn qorshahan ceebla soo noqo marka hadal iyo dhammaan dirir waan dadaalaynaa ilaa inta aan ka guulaysanayno xaqiiq waaye mudana guddoomiye lama rabo in aniga iyo saraakiil kooban oo dawladda ka mid ah maahee in cid kale ogaato in qorshahani been abuur yahay oo aynaan haysan wax qarash ah oo aan cidla taagannahay
waxaan bilaabaynaa olole ah in dhammaan maraakiibta loo sheegay inay biyaheenna ka tagaan haddii kalena la qaban doono. waa beelo waa inaan farriintaani gaarsiinnaa mooge iyo saraakiisha kale ee masuqmaasuqa ah iyo kuwa badda jooga. waxaan rajaynayaa in warkaasi sababi doono in maraakiibta biyaheenna ka tagaan. waa ka helay qorshahaas dirir, runtii waa la dhacay. waan ku faraxsanahay inaad ka heshay mudane guddoomiye. waxaan rajaynayaa inaan hal mar uun dhibaatadan ka ciribtiri doonno dadka reer daaqsan. xaawakiin aad ayay u fiican tahay inaan ku arko adigoo xabsigii ka soo baxay oo bannaanka si xor ah u wareegaya saaxiib. ma taqaannaa markii ugu dambaysay ee aad isoo booqatid bilooyin ayaa ka soo wareegay saaxiibe. runtii waan ku raaxaysanayaa inaan xorriyaddaydii dib u helay. haye muxuu mooga leeyahay? taas ayaaba halkaani keentay. maxaad hoos ugu hadlaysaa? miyuu joogaa isagu? maya, laakiin wax sira ayaan kuu sheegi rabay. weli ma oga isagu. haa, ii sheeg, dhegtaa ii taagan. mooga waan ka tagaayaa, ma og tahay? taasi sir weyn ma aha. qof kasta oo adiga aqoon ku leh wuu iska qiyaasi karaa in midtaasu ay dhacayso. laakiin wiilkayga ayaan ku dagaalamayaa. markaan isaga lama joogi doono. sax, geesinimadaas ayaan kaa rabaa. mooge aan wacdaro tusnaan ku idhi. aamina naa mooge aan cashar u dhignaanu ku naridee. waxaan rabaa inaan u tago golaha odayaasha. marka maanta waan kuu baahanahay saaxiibay. ma xasuusataa kaalmadii aa ila diyaarka ahayd maalintii hore howlgalkii Suhayb guriga aan ku soo celinno? waanu foojigannahay, diyaarna waanu nahay. hawlwelin walaalo. marka waxaan u baahannahay dumar geesiyaal ah oo i raaca. dumar ay ka go'an tahay in mooga uusan iga qaadanin Suhayb. sax, waxaan islahaa maalintanoo kale ku soo mari mayso. xaawakiinay aniga igu xisaabtan. dharkan anigoon dhaqin ayaan ka tegayaa si aan haween geesiyaal ah uga soo xesho haweenka ayuutada iyo kuwa kale. waxaa la gaaray xilligii annaga ka haween ahaan aan caawin lahayn qof dumar ah oo naga mid ah saaxiib. waan ka cabsanayaa inaan sidaas sameeyo, laakiin waa laga maarmaan. waan samayn karaa. annaguna garabkaaga ayaan taagannahay. dumarkii ayuutada iyo suuqlaydii ayaan sugaynaa. saaxiibbo fiican ayaan yeeshay intii aan kalluunka iibinaya walaalo. mahadsanid aamina. marka waa idin sugaa si aad guriga iigu soo martaan oo aad ii raacdaan. haa, hal saac kadib mooge meesha laga soo galay ayuu garan waayi doonaa xaawakiinay. hal saac kadib balan waxaa ah in mooge meesha laga soo galay uu garan waayo xaawakiin. walyaa budhcadbadeed yohon shaqola'aantaadii ayaad halkan la wareegaysaa sidii caadada ku ahayd. muxuu yahay dhibka ku haysta mooge? marka muxuu yahay qorshahaagu? dee kol haddii aad ogaatay in qoyska sheekh rooble ay beertaadii kaa gubeen, maxaad yeeli doontaa? oo maxaa kaa qusay arrintaas adiga? dhiiggayga ayaad u haliilaysay markii aad u malaynaysay inaan anugu beertaada gubay. maxaad sidoo kale u samayn laadahay hadda? mooge, gaarigaaga iska kaxayso oo iska kaydhaaf aniga. haa, aan gaarigayga iska kaxaystoon iska galo, adna iska lugee, lugta jaf. teeda kaleete waxaan kuu sheegayaa, qofku marka uu wata gaari uu isagu leeyaho hantidiisa ah, raaxada uu dareemaya ma garan kartid. saahiirkaa mabaad gaadhin, iska lugee. allah ku baday lugta. mooge, waxaa kuu roon inaad hadda kaxaysatid oo aad ku raaxaysatid inta aysan dawladdu kaa qaadan gaarigaan xun ee aad ku faanaysid. waa maxay calaacalka aad waddaa? miyaa lays habaaraya? oo mooge, warbixinta qoraalka kuma soo gaarin miyaa weli? qoraalkee? sooma maqlin mooge in dawladdu ay weerarayso dhammaan maraakiibta shisheeye ee badahayna ku sugan. dabcan kuwii ka faa'iidaysanayey waxay magdho u soo celin doonaan wixii ay daaqsan ka xadeen oo dhan way soo celin doonaan. alla miskiinka ayaa wuxuu sheegay. waar dawladdu weligeed sidaa wax yeeli mayso. miskiin baa tahay, alla yaa kuu warram. haa, inaad sidaasi aamintid ayay rabaanba. haddii aan adiga ku ahaan lahaa dib u gurasho ayaan samayn lahaa, sababtoo ah maalmahaagu way tirsan yihiin, way kooban yihiin, way kuu dhammaatay. iska calaacal, waan kaa sii tegayaa. weligaaba calaacalkaa ku jirta. waayahay mooge, dawladda igu salaan marka ay kuu yimaadaan. war waalidaada iska sii wado. saxanka saxanka saxanka
hallo cabdinuur waa mooge haa mooge waan ku maqlaa inkastoo aad igu khiyaantay haddana waan haystaa nambarkaaga weli xilligan caadifad looma joogo dhib weyn ayaanna haysta dhibku joogto ayuu ii haystaa ilaa markii shaqada si qasab ah fasax laygaga dirayba hagaag haddii aadan hadda si dhaqsale uga hawlgelin dhibka ku haysta wuu sii kordhi doonaa haddii shaqadaada lagaa fariisiyo adiguna ma waxaad ii soo wacaysaa inaan heerkaas ku sii dhowaado oo shaqada layga joojiyo mahadsanid mooge maxaad rabtaa hadda ii sheeg mooge waxaan maqlay in hawlgal ka dhan ah maraakiibta kalluumaysiga ee sharci darrada ah uu bilaaban doono maxaad arrinkaa iyadaa kala socotaa bal ii sheeg wax oo miyaad ii siisa aniga ma waxay kula tahay inaan wakhti u hayo wari ay dhegayso marka anu waxaan kaa rabaa ma soo ogaanaysaa arrinkaa iyagaa mise maya inaad ani xogii keentaan kaa rabaa taasi macquul maaha saaxib bil'aadan noocee ayaa tahay miyaadan lahayn asxaab aad isku fiican tihiin oo kuu soo ogaata warbixinta dhabta ee xarunta saaxiib ayaad ka hadlaysaa mooge maya maligi wax saaxiib ah sidaada oo kale ayaan ahay mooge saaxiibaday oo dhan waxaan waaye markaa dadnimadiisii la cashirsay aniga hadda waxba aan iima tarisid waa inaan raadsadaa qof kale oo shaqooyin badan ii qaban karaya oo dadnimadiisa iibin karaya oo haddii loo baahdo ma aragtay dadnimada saaxiibbadii yaa iibin karaya waan kugu daalay adugu mooge saaxiibka ugu fiican inaad heshid ayaan ku rajaynayaa way oo way hallow john inaad isoo wacdid maanta ma filayn aniga qudhaydoo ma filayn inaan maqli doono wax xun maxaa jira saaxiib waxaan maqlay in weerar lagu qaadi doono maraakiibta ku sugan biyaha daaqsan maxaa ka jira arrintaas warkaas ma kuu xaqiijin karo mana beenayn karayo taasu kaa shaqayn maysa mid un ku toos saaxiib waxaan isku dayayaa inaan warbixin dheeraada helo burcadbaladkii dirir ahaa ayaa sidaa igu yidhi laakiinse waxaan u malaynayay inuu iska calaacalayo balse haddii aad adigu laftirkaagu maqashay waxaa laga yaabaa arrinkaa inay wax ka jiraan mooge su-aal ayaan doonayaa inaan ku weydiiyo shatiyada aan ku shaqaynaynay ma sharci darraa mise waa sharci midda kale waan ogahay inaad la shaqaysid sarkaal dawladda ka tirsane ma isaga ayaa hogaaminaya weerarka dhinaca kalese saaxiibaday ama macaamiishaydu ma ka badbaadayaan weerarkaas si ayagu ku wajahaya saaxiib sug aan soo ogaado nusa saac kadib ayaan soo ogaanayaa waxaa jira kolkaasaan su'aashaada ka jawaabi doonaa mooge sidaasay dani kuugu jirtaa oo koo ron adiga waxaan ku siiyey fursad aad sumcaddaada ku soo ceshatid haddii macaamiishayda oo lacagta iyo biyaha laga celiyo markaas aniga iyo adiga way noo kala dhammaanaysaa ma faad anigaa ballan kaa qaaday oo intii karaankay ah waan dadaalayaa saaxiib waan dadaalayaa haddii aan moogow nus saac gudahood aan warbixin kaaga heli waayo waxaan ku qasbanaanayaa inaan macaamiishayda u sheego inay biyaha isaga baxaan si ay u nabad galaan ma doonayno in annaga iyo dawladdaada uuna dhex maro dagaal foolxun laakiin moogo waxaad ogaataa in haddii sidaasi ay dhacdo aad dhulka ila gashay ayna noo kala dhammaanayso lacallaa shaydaan ku yaal ganacsigu wuu isu kay toosilaaya tallaahi hadda qof nafta waan ka jari karaa haa aamina waa aaminsanahay wallaahi aamina qof nool iga dheh hooyo yaa way haweenka bannaanka ka heesaya waa saaxiibbaday tiirarka aan ku taaganahay waaye hani boorsadaada iyo tan suhaybba soo qaad oo guriga waa ka tegaynaa miya hooyo haa hani dib uma soo laabanayno waxaad dooni lahay inaad dharkaygii oo dhan qaato dad ayaa u soo laaban doono oo noo soo qaadi doono balse hadda inta aan haysanno ayaan qaadanaynaa haya dhe hooyo aabbana ma u malaynaysaa inuu oglaan doono sidaas darteed ayay saaxiibbaday bannaanka u joogaan tiirarka aan ku taaganahay mar dambe keligeen ma ahaanayno hani xaawakiin ina keentee dhaqso ina keen waan soo soconnaa wallaahi ma aqaani meesha uu jiro waan dhaartay inaanan garanaynin aniguo meesha uu jiro ama waxaad u malaynaysaa ilmadaada beenta ah inaan kuugu beer jilcayo yaa waan ka warqabaa qorshahaaga foosha xun ee aad waddo wax qorsho ah ma hayo xataa daahiri muusan sheegin markii uu baxayay sidaad mugdiga ugu jirto ayaan aniguba ugu jiraa
hibo waan ku baryayaa ii sheeg wiilkayga meesha uu jiro intaanay xeere ii fandhaal kala dhicin haddii inta uu tahriibo dad xun uu u gacan galo yaa og waxay ku samayn karaan laga yaabay inay carrabkaba ka jaraan oo uusan dib dambe u heesin alla wayooway alla wiilkaygii alla rabbiyow waan ku baryayaa ilaahayo waan ku baryayaa noo naxariiso yaa rabbi waan ku baryaynaaye noo naxariiso maxay hiba nolosha daahir ka soo doontay ma inay riyooyin been ah ku abuurto qorshahaagu ma inaad yurub ku kulantaanbaa maxaa yeelay adigu yurub waad aadi kartaa laakiin isaga baasaboor xataa ma haysto marka waxaad ka dhaadhicisay inuu jidkaas khatarta badan uu aado si aad ugu kulantaan yurub hiba maxaad nolosha wiilkayga ugu khamaartay kuma khamaarin daahir wuu iska baxay isagoo nii sheegin xanuunka aad dareemaysid mid leeg ayaan dareemaya aniguba ma xanuun baad dareemaysaa hadda carruur ma dhashay horta naa xanuunka aan marayo aniga oo hooyadiisa iyo midka aad maraysa adigoo saaxiibaddiisa qowlaysatada ah miyaad isla barbar dhigaysaa yaa daahir balde waxa aad samaysay balde waxaa laygu eedaynayaa dembi aanan gelin anigu daahir maxaa sidaa iigu samaysay hiba waan kaa sii tegayaa adiga iyo murugadaada beenta ah laakiin hibo ilaahay baan ku dhaartay haddii wiilkayga daahir ah ay wax ku dhacaan nabad ayaan kuu diidayaa inta ay nafta igu jirto middaa dhab dheh qofkaas dhankeenna u soo socda ma dirir baa naadanka ma lihi aniga naga daahee saaxiibey jacaylka labadiinna idinka dhexeeya weligiis ma dhammaanayo xaawakiina ciyaarta iska dhaaf assalaamu calaykum dumarow wacalaykum salaam maxay farxaddani ku saabsan tahay maasha allah maanta waa maalintii xorriyadda haye dumarow aan si wanaagsan oo quman u dhaqanno gees aan u dhaqaaqno si xaawakiin iyo dirir ay u wada hadlaan waa caadi looma baahna wax qaas ah oon ka wada hadlayna ma jiraan runtii xaawakiin waxaan jeclaan lahaa inaan wada hadalno maxaad rabtaa inaad ka hadashid dirir maxay tahay xurriyaddan loo mashxaradayo waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa jira maanta waxa keliya ee aan arrintan kuugu sheegayo waa inaad tahay ilmahayga aabbahood mooge ayaan ka tegayaa oo ma dhabbaa waan gartay oo siduu u yeelay isaga weli ma oga asaga suhaybna uma oggolaanayo inuu markaan qaato sidaas daraaddeed ayaanba dadkan u soo kaxaystay runtii aad ayaan u faraxsanahay xaawakiin aniga ayaa kuu jooga waxba ha welwelin waan ku baryaa dirir arrinta si kaleyaynaan u dhigin mooge uguma soo tegayo inaan adiga kuu imaado qorshahaas doorkii hore ayaan rabay laakiin hadda aniga ayaa laftayda uga tegaya mooge carruurtayda dartood ayaan uga soo tegayaa nin dambe noloshayda uma daba fadhiisanaayo maanta laga bilaabo noloshayda gacantayda ayay ku jirtaa waan ku fahmayaa xaawakiin laakiin anigu weli waan joogaa meelna uma socdo ogow waan sii baxayaa waxaan rabaa inay odayaashu i dhegaystaan wiilkayga anigoo ku dagaalamaya waan kugu faanaa xaawakiine waana iga dhab arrintaasi nabaday dirir saaxiibayaal ina keena aan odayaasha u tagnee maa teleefoonkaaga qabatid cabbaar ayuu dhacayey hadhow ayaan wacayaa qofkii soo wacaya dhib ma laha ma waalan tahay teleefoonkaaga maantoo dhan ayuu dhacayey mana aadan qabanayn ka warran haddii uu yahay war degdeg ah oo daahir ku saabsan waa kana fiiri qofkii ku soo wacayey waa nambar aanan muuqan oo aanan la arki karin
alla rabbiyow eebbow waxaan kaa baryayaa oon kaa rajaynayaa inuusan wax xun ku dhicin wiilkaygii daahir alla daahirkaygii daahirow nambarkan si loogu celin karo ma jirto aan sugno bal inta ay mar kalena soo wacayaan haweenkeenu waa horyaad had iyo jeer hubaashiiye waynaynu dilnaa ilaa dulma dumarka daaqsan waynaan difacnaa xagka dumarka reer daaqsan waxaan u dhownahay albaabkii golaha odayaasha maasha allah maanta waxay noqon doontaa maalintii guusha u soo hoyatay haweenka alla qofkaas sidii wax waalin gaariga dhankeena u soo wada soo mooga ma aha waxba ha nixinina waan ogayn in middaan dhici doonto oo waan u diyaar garownay naayaana diyaar ma tihiin hagee wax kasta haddii ay dhacaan xataa waa inaan moogo u oggolaanin inuu suhayb yare xaawakiin hani u soo dhowaado hayadhaha shimbir yar baa ii sheegtay riwaayadda halkan ka socota laakiin ma aanan aaminin aniga ayaaba halkan imid si aan indhahayga ugu arko xaawakiin waa maxay waxaan halkan hawshan waalida ka wadaan bal ii sheeg tani waali ma aha mooge ee waa xaqiiqa waree aamina aamusnaya adiga kulamaan hadlina jaahilnimadaada way iiga dhammaatay mooge aniga iyo adiga way noo kala dhammaatay warkani aniga iguma cusba ayaan ku yidhi soo mar kasta sidan ma samaysid inta aad baxdo unbaad haddana soo laabataa markaan dambe kuguma soo laabanayo mana ku soo laabanayo agtaada waa runteeda aan kuugu sii daraa mooge mar dambe kuu soo laaban mayso ma fahan weeye ma kaa dhabba adiga naagahanba been baa isu sheegaysaa dumarkan oo dhan waa dumar alle jidka u iftiimiyey iftiin intee leeg naama waxaad rabtaa inaan nimankooda ugu yeedho oo ay kaa kaxaystaan kadibna aad adigu keliga halkan ku soo hadhin haa bal car u yeer raggaanna wayna taageeri doonaan mana jecla sida adaga reerahaaga ula dhaqan sax weeye ya xaawakiin haddii aad rabtid inaad halkan ka lacnaclaysid isii wiilkayga suhayb aan la tage dhaqso wiilkaygaan u baahanahay anugu dhegayso lagama yaabo taa haa kurriyaa waryaahe suhayb waa wiilkayga waana ku dagaalamayaa naama sidaasaad qalad isaga dhaadhicisay ood beenaad isugu sheegaysaa isii wiilkayga suhayba oynaya oo muxuu ilmo yar oo 1 sano jira kuu tarayaa haddii ay dhab kaa tahay oo aad rabtid inaad korisid markuu 10 jir noqdo ayaan ku siinayaa wari dhegayso haddii la rabo laguma siinayo haquryaan suhaybi naa wiilkayga isiya naaga yoon waabad ka soo tarteen naayaarehen naa miyaad waalateen naa horteeda ka dhaqaaqo horta maxaad iga hor qabanaysaa naanga dhaafo horta la dhaafo wanayo naga qabtado bilaadan naagaan war mooga waad ka soo darto waad waala waa inaad annagoo dhanna jirtaa si aad xaawakiin suhayb ama hani aad ugu gudubtaa waryaahe naaga xun baatiina meesha isaga dhaqaaqo horta magacyadaad rabto noogu yar ma waxay kula tahay inaan dhag jalaq u siinayno wiilkaygaysiiya wiilkaygaysiiya allina lama yahay waar dadkan yaa iga qabsada oo waryaareen adduunka ilaa waxa u daran naaga kuu shiro rabbi kugu salliday waxaan u socdaa golaha odayaasha oo iyaga ayaa go'aan ka gaaraya ama waxaad u malaynaysaa adigoo naaga inay kula jirsan doonaan ama hadalkaaga dhegaysanayaan rajaalinta iyo odayadu lagama yaabo in adiga wax kaa dhegaystaan naya naagaan anugu qabaa tahay waxaan ahay suhayb hooyadii aniga ayaa kaaga habboon haysashadiisa da'dan markuu jiro xaawakiin wax yar ayaan u jirnaa golihii odayaasha suhayb la carar annaga ayaa kaa celin doona mooge carar hani soo carar xaawakiin
لا يا حواكين halkan ku soo laabo حواكين odayaasha ayaa arrintan go'aan ka gaaraya mooge istaji waryahay waxaad isu malaynaysaa inaad waalantiin oo aniga waali ila imanaysaan waxaan galayaa gaarigeyga oo dhammaantiin waa idin jiirsiinaya hortaada kama leexanayno najiir haddii aad nin raga tahay حواكين carar حواكين mooge najiir si gaarigaaga bal haddaad nin raga tahay alla may mar kale ku soo wacaan ceebla waxaa laga yaabaa inay barito nagu soo celiyaan bal aan u kaadino xaggee u socotaa hadda yab qofka xitaa musqusha ma aadi karo miyaa ilaa uu sheegu yidhahdo waa baxay musqul baan u socdaa waa sidii xalku bal yara sug waxaa laga yaabaa intaad musqusha ku jirto inay soo wactamaane ceebla maxaad ii wareerinaysaa adiguba la hadal waad isku mid baanu nahay maxaa anigu iigu dhibaysaa oo maxaan u sheegaa aniga laftaydu ceebla ma aqaano waxaan u sheego waxaan rabay uun inaan iska dhagaysto keliya allah ilaahayo ma nambarkii aan la arkayn baa haa waa isagii bal ka qaba inta aysan nagu daalin oo samaacadda fur halow qofka ila hadlaya mashiin qobla isagaa kula hadlay adeer adigaa daahir iyo qobla aabihiisa haa nacam waxaan kaa soo wacayaa dalka suudaan wiilkaagii daahir iyo qoble gacanteenna ayuu ku jiraa waxaana rabnaa $12,000 haddii kale wiilkaaga waan dilaynaa oo kow ayaan kaga siinaynaa alla ogayo baaye alla ma wiilkaygiibaa ninka lagu gogortamaya alla ma wiilkaygiibaa lacagta iska soo dir si aan cidina hadda u ooyin may maqashaa 3 beri gudahood waa inaad ku keentaa $12,000 lacagta soo hel kadib ayaan kuu sheegayaa sida aad wiilkaaga ku helaysid war ma fahamtay warkaas macad yahay mise inaan waqti iska dhumina looma baahno waan dilnaa kow ayaan kaga siinaa warkaasi waa cad yahay alla waan idin baryayaa wiilkayga dilina alla wiilkayga dilina waan idin baryayaa alla xaggeen aadaa alla xaggeen waxaan ka keenaa ay sheegayaan ama wiilkii way iga dilayaan alla maxaan sameeyaa alla wiilka ilaahayo way iga dilin rabbiyo waa ku barya ilaahayo wiilkayga iga dilin nimankaas xaasidiinta ilaahayo iga qaba iga celi saxanka nolosha wah sida ay qaybta labaad ku dhammaatay ayaa cajiib ah waan hubnaa inaad ku raaxaysatay waxaan filaynaa inaan isku soo noqon doonno qaybteenna saddexaad insha allah maadaama qaybtani dhammaanayso waxaan jeclaan lahayn inaan fikirkiinna ogaanno maxay ahayd sheekada aadka ku xiise gelisay inta lagu guda jiray qaybtani sahanka nolosha maxay ahayd sheekada aadka ku xiise gelisay inta lagu guda jiray qaybtani sahanka nolosha waxaan jeclaan lahayn inaan ogaanno fikirkaaga ku saabsan arrintan ee fadlan fariin qoraal gaaban noogu soo dir faalladaada adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogtid waxaad fariintan si lacag la'aan ah noogu soo diri kartaa nambarka 354 waa 354 nambarka 354 fikirkaagu waa noo muhiim intaan dib dambe hawada ugu kulmayno nooleeya rajada daaqsan eebbaweyne ha idin dhowro saxanka nolosha